Asalaamu calaykum, waana wada salaamo meel walba adduunka ka joogtiin. Magacayga waa Nuruddin. Maanta waxaan jeclaystay inaan ila wadaago wax oo macnaha aada u muhiimsan. Maxaa yeelay waxaan jeclaystay inaan ka hadlo haddii aad tahay qof lafaha xanuunayo oo laakiin rabo inuu jimicsiga bilaabo oo laakiin niyadiisa macnaha ayna siinaynin inuu gymka bilaabo sababtoo ah lafiha xanuunayo mar walbo. Aniga inkastoo aan ahayn qof dhakhtar ah, laakiin waxaan ku takhasusay xagga personal training xagga jirka bini'aadamka sida uu ugu jimcin karo jirkiisa. laakiin waxyaalahan aqoon ahaan aan u aqaano oo macnaha ku saabsan inuu qofka macnaha jointskiisa ama lafihiisa healthy uu caafimaad uu siiyo sidoo macnaha jimicsigu niyadda ku hayo uu u bilaabo ha noqoto jimicsi walbo. maxaa yeelay jimicsiga kaliya maaha biraha gymka lagu qaado, waxay noqon kartaa gurigaada oo ku suubinaysid muxuu ahaa adigoo banooni, waxay noqoto jimicsi walbo. laakiin waxaan jeclaystay inaan la wadaago macnaha waxyaalo aada u muhiimsan oo qofka bini'aadamka laga rabo inuu macnaha lafihiisa uu caafimaad uu macnaha uu siiyo qaababku ku siin karo. So waxaan la wadaagayaa 10 tip oo macnaha aad ku dareemi kartid laf xanuunka oo macnaha oo ma dhahayo macnaha laf xanuunku ka baabi'i doona dhammaan, laakiin haddii aad isku daydid in aad horumarkeeda gaari kartid aan filayo. So tobanka waxay kala yihiin. Marka koowaad, qofka waa in uu haddii uu macnaha weight ku saaran yahay culus oo aad tahay qof culus, isku day fadlan inaad weightkaada hoos u dhimtid. maxaa yeelay waa muhiim macnaha qofka hadduu macnaha uu jir weyn uu leeyahay oo macnaha kama hadlayo qof jir weyn oo murqale ama macnaha oo adag. waxaan ka hadlayaa haddii aad tahay qof macnaha xoogaa buuran, isku day inaad xoogaa miisaankaada hoos u dhimtid sidoo macnaha lafaha xanuunka kaaga baaba'o. tan labaad, haddaad tahay qof oo macnaha oo smoking ama macnaha oo sigaarka cabo, iska jar. maxaa yeelay waa muhiim qofka inuu macnaha balwadaha oo macnaha dhibaatada jirkiisa u keenayso inuu iska dhaafo sidoo macnaha lafihiisa macnaha uu faa'iido weyn ugu dareemo. tan saddexaad, waa muhiim qofka inuu badsado malaayga. maxaa yeelay omega 3 macnaha sida malaayga qofka waa wax aada u muhiimsan oo macnaha uu faa'iido ka heli karo xagga lafihiisa caafimaad. sidoo kale waxa loo yaqaano fish oilka qofka waa inuu macnaha uu isticmaalaa maalin walbo. maxaa yeelay waa muhiim qofka haddii aad tahay qof oo macnaha oo jimicsi suubiyo, ma rabtid macnaha inaad muxuu ahaa jilibka ama macnaha qoobka meel walba ee ahaato, ma rabtid inaad xanuun ka dareemtid. maxaa yeelay birta markaad qaadaysid haddii aad xanuun ka dareemaysid suxuladaada, macnaheedu waxaa waaye waxaa u baahan tahay fish oilka inaad qaadatid. taas waa macnaha number 3. number 4, waxaan dhihi lahaa qofka waa in uu macnaha uu kala ogaadaa cuntooyinka. maxaa yeelay qofku waa inuu cunto macnaha nacfi leh oo faa'iido leh sida vegetableka oo kale, inuu macnaha cuntooyinka healthiga uu cunaa sidoo macnaha jointskiisa health u helo. haddii aad tahay qof macnaha wax walba iska cunaayo, faa'iido maaha. sidoo dad qurbaha ku nooshiin oo macnaha aad fast foodka oo kale aad cuntiin, fadlan iska dhaafo. maxaa yeelay grease iyo oil iyo balaaya ka buuxdo, soo macnaheedu waxaa caafimaad uma aha lafaha. so waa number 4. so number 5, waxaan igula talin lahaa qofka inuu biyo badan aada u cabo. maxaa yeelay qofka hadduuna biyo cabaynin oo maalintii 1 gallon ama haddii qofka bini'aadamka waxaa laga rabaa maalintii inuu 8 glass cabo. so marka waxaa muhiima qofka inuu lubricate macnaha mar walbo uu biyaha aada u badsadaa sidoo macnaha uu jointskiisa oo macnaha qallalan oo caafimaad u helo. so number 5. so number 6, waxaan dhihi lahaa qofka waa in uu jimicsiga ku biiro. macnaha ama gym ha noqoto ama guriga ku subinayo. xataa muhiima qofka waa inuu lugeeyaa maalin walbo oo macnaha uu socdaa. fadhiga badan faa'iido ma ah. so isku day fadlan inaad jirka u jimicsiin. muxuu haddii aad lafaha aad zaid xanuun uga dareemtid, tartiib ku bilaaba. macnaha qasab maa inaad isla markii wix walba oo macnaha aad rabtid inaad horumarka gaartaa, saas maaha. tartiib ku bilaaba, laakiin qofka waa inuu jirka u jimciyaa oo macnaha lafihiis ka shaqaysiiya una fariisanin maanta dhan. number 7, qofka waa muhiim
in uu micnaha uu ku dadaalaa wax walbo oo micnaha lafa xanuunka u keenayo siduu iskaga joojin lahaa, oo ku dadaalaa micnaha siduu mar walba caafimaad uu ku siin lahaa lafihiisa. maxaa yeelay waa waxa kaliya oo aad jirkaada haysatid. haddii laf ka mid ay ku xanuunayso waxaa laga yaabaa in iska dhaaf inaad jimicsatid xataa nolosha micnaha inay kugu adkaato. so muhiim qofka inuu micnaha uu taasna niyadda uu ku darsadaa, uu micnaha qorshihiisa ay ahaataa mar walbo siduu lafihiisa caafimaad ugu siin lahaa. so number 8 waxaan igula talin lahaa oo micnaha muhiim ay tahay in haddii uu micnaha aad ka dareemtid wax walbo haddaan iisoo sheegay dhan, haddii oo micnaha weli wax oo caawis aad ka dareemi weyso oo micnaha lafihii weli zaa'id kuu xanuunayo, inaad isku daydin inaad dhakhtar la kulantiin oo micnaha la baaro oo micnaha lafahaada la ogaado wax walbo ka dhiman sida micnaha lagu dhammaystiri lahaa oo caafimaad looga dhigi lahaa. so waa number 9. numberka ugu dambeeyo oo aan dhihi lahaa waxaa waaye wax kale maaha. numberka ugu dambeeyo waxyaalo badan ayaa jiro micnaha lafaha oo micnaha xanuunkooda lagu yareyn karo. kaniiniyaalsha sidoo kale micnaha ibuprofen oo kale, Tylenol oo kale, sidoo kale muxuu ahaa bac yar oo baraf ku jirto aad micnaha saartid lafaha, micnaha sidoo kale massage qofka inuu marsado oo micnaha oo meelaha lafaha xanuunayo dhan uu mariyo siduu micnaha caafimaad uga dareemo. so waxyaalahaas dhan ayaa loo baahan yahay qofka inuu lafihiisa caafimaad uu micnaha uu ku siiyo sid uu micnaha jirkiisa ugu jimciyo. so waa muhiim lafihiina mar walba ka taxadartiin. insha allah waxyaalo badan oo aad ka faa'iidi doontiin waan iisoo wadaa. fadlan hadduu videoan ku anfacay fadlan share la dheh asxaabtaada meel walba adduunka ay ka joogaan. sidoo kale subscribe ila YouTube channelkayga, waxyaalo badan ka faa'iidi doontiin waan iisoo wadaa. boom.